qisada adiga codsateembo oo shalay tola ayntii soo dhahay dad la dilay inta lagu eedeeyay inay dembi galeen oo ay dad dileen haddana markii la dilay kadib oo yacni bacda fawaatil awaan haddana lasoo ogaaday in dadkii la dilay dilka lagu xukumay ay ahayd baatil oo aysan wax dembi ay galeen aysan jirin oo dadkaas faamiliyadoodii laga raaligeliyay waxyaabo lacagana lasi of course yani qof dhintay lacag wax ma ii tarayso already qofkaygii waa waaye hal clipna waa soo helay alxamdulillah waa soo dhigi doonaa codka anoo ka xiraysa copyright la igu qabnin markaana ragno insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isku soo noqduna suulaaladeeda waanu walaashin hodane channelkadiga daawanaysa waa meesha iiga baratay hoda online haddaad igu cusubtay soo dhaw walaal gacmo furan subscribe ugu dhiirigeli videogana like saar like furo badan iska saar free mahano saar like subscribe haddaa saarina weli saar gambaleelkana furto muhiim waaye saa iila socotid at least insha Allah hore haddaa iila soo joogteen aadan kaaga mahadcelinaya dhiirigelintaada kommentiyadiina maasha Allah tabaaraka Allah maalin walba waa akhriya waan idin soo jawaaba aadna waa idinkaga mahadcelinaya dhiirigelintiina saa ii jeceshana aniga idin jeclahay saad codsateen waxaa tiraahday yasoodana noo soo sheeg dad haddii ay jiraan inta lagu xukumiyay dil haddana gadaal lagu ogaaday inay abriye yihiin ama se aysan dembiga lagu eedeeyay aysan gelin dadka qaar waxay soo hodan aniga mowduuciyan ka dalbaday maxaa u soo gudbin qisadii aan ka dalbaday qisooyinka qaar ma helo qisooyinka qaarna kaamil ma ahan soo taasa keenaysa marka inaan idin fulin waayo waana ku xumay taas maaha mid aan gacantayda ku jirkin qiso kaamil ahayn marka aan la soo shirtago lagu qurux badan hanoo bilaabato saddex waa dalka Mareykanka midna waxa waay dalkan Ingiriiska aan ku noolahay qisada ugu koobaad waxa waaye wiilkaas yar kulay Mareykanka caan uu ka yahay waxay dhacday ahayd qisadan ama se mar hore waa 1940 ahayd wiilkan yar magaciisa waxa la yiraahdaa George Stinney markaas wuxuu ahay 14 jir iyo 6 bilood ayuu ahaa marka la eedeynay wiilkaas yar clipka aad arkaysan wiilkaas yar waaye laga sameeyay laga duubay wiilkaas yar marka wuxuu ahaa asalahan Black American ayuu ahay familigiisu ay iska family dad Black American oo iska liita iska danyar ayay ahaayeen wiilka yar marka waxa lagu eedeeyay inuu dilay laba yar oo gabdhood labada gabdhood mid waxa la odhanayay Betty waxay jirtay 11 sano Maryna waxay jirtay 8 sano labada yar ee gabdhood wiilkan yar maalinkii ugu dambeysay ee gabdhaha yar la weynayay ayaa wuxuu la kulmay oo waalidka markuu ilmo laga ilmahooda ay waayaan police weydiin xalay korma ugu dambeysay soo wiilkan marka maalinkii ugu dambeysay wuxuu labada gabdhood yar waalidiintooda ay arkayeen ayaga oo wiilkaas yar la taagan oo wada hadlayaan oo qosqosa ilmo waay 12 jir 14 jir ilmo waay yani qaab ahaan maybe inay weynaadaan dhar ahaan laakiin still ilmo waay soma waxay yiraahdeen maalinkii ugu dambeysay wiilkaas yar George Stinney ayay la joogeen okay gabdhihii yar sidii loo raadinay 4 maalmood ayay qaadatay in meydkooda la soo helo waxa laga helay meel duur oo kale oo baxeyrad yar ama sawabi yar ayaa labada yar gabdhoodba ayaga oo la dilay meydkooda laga helay inkastoo qaabkii loo dilay aysan sheegin ayaa loo dilay waxa la yaabka mudna ayaa waxay tahay in wiilka yar lagu eedeeyay inuu asaga dilay maadaama kaliya uu la taagnaa uu la hadhalay uu la sheekaysanayay waliba intaas waxa ku dheer plus waxa wiilka yar loo diiday inuu lawyer qabsado waxa loo diiday inuu isdifaaco oo hadla at least oo qaadigu ku yiraahdo maxaa haysaa noo soo daay gabdhaha yar waama kugu dambeysay maxaa isdhahdeen ma fiish hosh aalir anaga ku maxkamadaynay sidii marka ayaa wiilka yar lagu maxkamadeeyay maxkamadii jalsada waxay qaadataa dadka qaar waa aragtay ama filimaanta hada aragtay ama maxkamadaha hada koor aadagteen marka dilka la dhageysanayo qaara saacad qaato qaara 40 daqiiqo qaato ta ugu dheer waxay qaadataa 3 saacadood laakiin wiilkan yar xukunkiisu wuxuu qaatay 10 minutes looyana waa loo diiday inuu isdifaaco waa loo diiday 10 daqiiqo kaliya ayuu wuxuu qaadigu ku xukmiyay wiilkan yar in la dilo sidee loo dilayaa waa yani qaabka loo dilaayo ayaa kala qaar waa la daldalaa qaar cirbad suna la siiyaa qaar maxaa lagu sameeyaa horta wiilkan yar horta waxa waliba recordkaas geliyay caruurta ugu yar ee dalkaas Mareykanka sida xun loo dilay waxay ku sameeyeen kahraba
koronto ayay qabadsiiyeen madaxa kursiga waad clipka waad arkaysaa kursigana ku fadhiya camal ay ku fadhiisiyeen way xirxireen maskaxda ayaa waxay kaga dhajiyeen koronto saasuu wiilkaas yari ku dhintay goorma la ogaaday waay 60 sano fiiriya 60 sano kadib ayaa nasiib team cusub oo dambi baarayaal ah wiilkan yar faylkiisa ah si lama filaane gacantiisa ay ugu soo dhacday markay sii daba galeen oo baaritaankii iyo waxyaabihii ay daba galeen wiilkan waxa la ogaaday inuu shaqo ku leeyahay labadaas yar ee gabdhood qofka dilay uu qof kale ahaa sidii ay familigoodii loo wacay wiilkii yaraa oo wax loo siiyay laakiin lacag maxay ii tartaa waa inuu ilmahay waagu waay qofka labaad waxa waaye Troy Davis magaciisa wiilkan saan Troy Davis wuxuu ahaa 20 jir black American asagana maalmaha kamida 1991 asaga oo jooga meel Burger King-ga oo agteeda area-daas uu ka dhawaa exactly meesha uu taagna ayaa waxa ishuudayay police iyo dad gangis gangis dadka qaar ma fahmayna ku dhahan gangis waxa waaye dadka bastooladaha iyo afaaraha waaweyn ka shaqeeya ayaa gangis lahaa iyo police ayaa is shuudayeen wiilka yar marka goobta ayuu jooga goob joogu ka ahaa yani ma jirto meel ka qaar adoo jid iska socda meesha joogta wax ka dhacayo ma jirto maalin waxa dhacday aniga kulaale meel inta Hanslo liira suuq yar ayaan joogay ahayd Soomaaliya isdagaashay maama Soomaaliya 3 gabdhood xasbi Allah wa ni'mal wakiil ma ogi yani gabadha sida ay ugu goobteen horta ko wajigiina waa ka fiiqeen xijaabkii xataa way ka tuureen maalmaha waliba waan cusbaabay aheedo saana iga soo yeeto because marka qaban kar reasonka uga qaban kar waxay tahay hadaa anigu aan dhaho tan ka qabta dagaalkii aan ku jiraa ee ka dhigan tahay hadda iyo kooyo maxkamad iyo yaa horeeye iyo yaa ana waa cusbaa so mu u dhawaanin حتى Soomaali kale meesha way joogtay oo duuban at least anima ba duuban laakiin waa ka fogaaday because maadaama dalkana aan ku cusba mi ii wanaagsan record ahaan in police meela la iga waco so that's why laakiin dad duubanayna waa arkay wallahi Soomaali kale way jirtay cid dhex gashayna ma aysan jirin ani noo waday 1989 1989 ayay ahayd marka meeshii marka la isku shuudayay waxa ku dhintay nin police يعني gangiski waxay dileen nin police oo magaciisa la yiraahdo Markfield waa u jeedin Markfield markii la dilay kadib oo meedkiisa la qaaday isla markiiba dadkii goobta joogay oo dhan ayaa la qaaday laakiin nasiib xumadiisa wiilkan maafiyadii waa ay fakatay kaliya dadkii si kolba hal loo soo deeyay asaga kaliigii ayaa soo heray sidii ayuuna qadiyadii madaxa looga saaray dadka meesha joogayna sida la sheegay asaga kaliya ayaa wuxuu ka ahay black American saas ayuu wiilka qadiyadii oo ku qaatay 9 qof fiiriya yani arno ilaahay subxaana qaadir dulmiga ma jecla 9 qof oo goob jooga ahay ayaa wiilkii ku marxaati fureen inuu asaga ka dambeeyay dilkan oo shoodkii uu ku jiro asaga wiilka naftardiisu oo dilay poliska 9 qof markii ay ku marxaati fureen ay isla markiiba isla sanadkii 1989 bishii 9 ee September 12keedii wiilka waxay ku xukmiyeen dil waliba waxa lagu xukmiyay in cirbad sun ah la duro xaqiiqadii alxamdulillah yarhamuka Allah bashara imanka jaray wiilkan inuu dulmana oo dulm lagu dilayna waxa la ogaaday 17 sano kadib ayaa la ogaaday dadkii dilayna la soo qabtay laakiin maxay taraysaa kuwii la soo qabtay waa la iska daay wiilka familigiisana lacag la siiyay qofka saddexaad waxa waaye dalkan Ingiriiska ayuu ka dhacay ahayd ninka magaciisa waxa la yiraahdaa Tiamato Seyran Taimo Seyran taariikh ahaan waa mar hore laakiin 1949 ayay dhacday ee dalkan England ayay ka dhacday wiil mahane nin ayaa waxa lagu eedeeyay inuu dilay gabadhiisa yar oo jirta 4 bilood gabar yar yani babydiisa yar 4 bilood jirtay ayaa lagu xukmiyay ayaa lagu eedeeyay inuu asaga dilay oo waliba waxa ku eedeysay naagtiisii leh meeshii marka baaritaanka markii lagu waday ayaa waxa dhacday asagii inuu didido inuu jareeyo okay
qofna waxaa jiro inuu dhiido qof dadka qaar waxay sameynayaan ma oga oo controlka dhumiyaan yani dadku waa kala duwan yihiin aan ka wada okay ninkan wuu dhiidsanaa marka waa baaritaanka yani waxa idin dhaa anu gacmaha ijareymaha wax kale laakiin yani inuu ilaahay umadiisu aysan sineyn abuurkeenu kala duwan ka wada ninkan hadda marka waa u dhididay aad u dhididsanaa so marka muxaqiqiintii dadkii oo dambi baarayaasha ahay waxay ka shakiyeen inuu ninkaas sababta uu la dhididsan yahay ee tahay beenta uu sheegayo okay wuu sheegay wuxuu ku yiri aniga ma dilin waxaa dilay nin magacayga nin dariskayga ah oo markaas jiray 39 sano oo magaciisa la yiraahdo Christy wuxuu nin asagana Ingiriis asalaan British ah laakiin family lehen oo daris hada daris walaal sas amal daris ayin ayaa wuxuu ku yiri ninkaas ayaa dilay markii lagu yiri maxaa ku tir ninkaas ayaa dilay wuxuu yiri maalinkii gabadhayda yar meedkeeda aan arki doono because aan arki doono ninkan ayaa area gurigayga ka agdhow markuu ay arkay ayuu guriga ka dhaqaaqay taas ayaa marka keentay buu yiri ina asaga lagaga shakiyo okay gabadhan marka qolkeeday ku jirtay ee hooyaduna of course aadaan caruurta markii jiifan meelaha wariyo soo ma sas amal la way jiifsatay hawlaheeda qabsanaysay sas amal ay ahayd waa laga aamini waay ninkii dariska xataa ma loo wicin sidii marka maadaama uu dhididsan yahay ay muxaqiqiintii yiraahdeen ninkan been ayuu noo sheegoyaa ee asaga ayaa dilay hadoo asaga dilay muxuu la jaraynayaa muxuuse la dhididaya yani la dhididaya okay sidii marka ayaa Tiamo waxa lagu xukumiyay daldal in la daldalo ayaa lagu xukumiyay markii la daldalay kadib meeqa sano kadib ayaa la ogaaday ma garanaysaa 9 sano kadib yani ninkii Tiamo markii la daldalay 9 sano kadib ayaa dariskiisa lagu soo eeday inuu dilay gabar yar oo kale oo 3 jir ah oo isla area-da ay deganeed markaas maxkamadii lagu wareysiga la wareysanayay ayaa lagu yiri moogta hadda koor 9 sano koor inuu nin Tiamo la yiraahdo kugu eeday inaad gabadhiisa dishay yani soo ooyintis maxay tartaa soo ooyinaya wuxuu yiri yes ana dilay gabadhaas iyo caruur kale way jireen laakiin liima dareem yani 1950 ka 70 sano koor waa adduunka soo hadda yahay ma ahan hadda sana qofka lagu soo helayo okay sidii marka ayuu maxkamadda ka dhaxooyay yes aniga ayaa dilay ahayd babydaas ninkaasna si dulum ah ayaa loo dilay run ahaantii dalkan Ingiriiska waqti xaadirkaas aad ay qadiyadan u qabsatay ahayd taasa marka keentay in qadiyada dalkan dadka dambiyada dilka fugeys ama dambiyo xun geysto in at least lagu xukumiyo xabsi daayin maahane dil laga mamnuuco ninkan qadiyadiisa ayaa keentay qofka ugu dambeeyo maadaama fududan ku soo daray magaciisa waxa la yiraahdaa Cameron Willingham wuxuu ku noolaa dalkaas Mareykanka Washington DC sala sheeg 1991 ayaa gurigiisa oo gubanaya la arkay okay gurigiisa gubanaya waxa ku jiray 3 gabdhood oo asaga dhalay iyo naagtiisa ayaa gurigii ku dhex gubtay oo ku basbeelay asagu marka wuu maqnaa markii la soo qabtay la baaray baaritaanka lagu waday iyo dariskii iyo waxay sheegeen in uu ninkani dili jiray xaaskiisa oo ahaa yani nin xanaaq dhow oo markii xaaskiisa laba kalmood isdhaafsadaanbo hore u sii dharbaca gaawsor bay adu nin xun oo fudud oo xanaaq dhow inuu ahaa iyo dariska iyo dadka isla shaqeeyaan wiilkaas company-ga oo ka shaqeynay ay ku wada marqaati fureen yani okay kaba soo qaad qofkan waa xanaaq dhow yahay laakiin taas macnaheedu ma qofka inuu ku xukumisid dil sababtoo ah ma loo haayo daliil qaat ah ayada ay saas tahay markii taariikhdeed 1993 ayaa waxa lagu xukumiyay in la dilo waliba la duro cirbad sun ah markii la dilay kadib after 5 years ayaa qadiyadooda nasiib team cusub oo markaas dadka dambi baareysha faalkoodii ilaahay markuu qof xaqiiq soo bayaaminayo dulmanayne waxay ahaysaa hindiso bayaaminayna gooni waaye dadkii marka baarayaashii ayaa waxay faylkii markii arkeen si dabagaleen la ogaaday gurigan waxa gubayba inuu ahaa amar yani ana idila amar alla laakiin ayaga waxay leeyihiin wixii gubay ma la ogo guriga ama asaga iska gubtay يعني si aan loo laakiin anaga waxa waaye qadaa u qadar soma amar alla dadkaana qornaa inay ku dhintaan dabkaas saas loo shiday okay 5 sano kadib marka ayaa la ogaaday in lagu xukumiyay
xukun baatil ah oo beri ahaa sida ayaa familigiisa loogu xukumiyay lacag gaarayso 70,000 oo USA American ah laakiin bees maxay taraysaa dad qofkaagi baa weysay I hope inay idin cajabisay haddii aad interest ah ku tihiin qaybo badan oo kala jiraan waa soo sameeyna hadan inoo soo sameeyso isoo amrale okay I hope inay idin cajabisay like far badan iska saar please waa casi asxaabi please share gareeya saabuqalka u gaarna at least wixii raygaaga comment ku soo sheeg intaan ka kulmayno ana walaashin waxa idin kaga tagaya fi amanillah